السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير يا برادة المرجنية وفتحي عبسية كسود هذا مسلسلكي مريم أما تحانيه مريم ومعلن سبتي مقالة ليك فيو كنت على ميل وشرتا لبا ساعدود مقالة السيارة in the Pacific Northwest وبلوغي بشا سبتمبر inkasta oo deegaanka Pacific Northwest weli kulayl yari sii jiro magaalada Lakeview buur ayay salka ku haysaa dhinacna biyaha ayay kaga forortaa biyo mareenka ama leega loo yaqaano Lakeview sidaa darteed mar walba neecaw yaro macaan ayaa iska jirta Mariano gurigan u soo guurtay dhowr maalmood ka hor kana soo guurtay magaalada Seattle oo ay nolosheeda inteedii badnayd ku noolayd ayaa weli kala guraysa boqosyadeedii oo alaabteedii intii badnayd weli waxyaabihii yaraaya weliba sharxaaduhu ay ku jiraan intii ay gurigan deganayd waqtigan oo kale marka la gaadho ayay koob shaaha brandaheeda biyaha qarka u saaran ula soo baxdaa oo quruxda isku qoofalan halka ka daawata intay dhulka yara fadhiisato oo cagaha ay throw ama marayar sidaa u saarato sharabaada ma xidhno in yaro neecaw yaro dhaxano ayaa jirta ay koobkeedii shaaha ahaa labada gamcoodba sidaa ugu qabsato sidaa ugu dheegaysa istacajibka qoraxda iyo biyuhu sida ay legga iskaga jiraan sidii laba isjecel oo leydsanaya fiidkii deetana Marian intay ku dheegagto quruxda oo xabaar sidaa indhaha ula raacdo oo koobkeedii shaaha ahaa marba dib u yara fiiqsato ayay isyara qanjiirinaysaa odhanaysaa subxaan allah bartani waa bartii aad weligaa ka fikiri jirtay aad qalbiga ku sidatay ka daawan jirtay no doubt waa hubaal inaad hore u taqaanay gurigan iyo dhulkan horaad u timi Marian oo professor of social work qof aad iyo aad wax u baratay wax badanna ka taqaana diinta islaamka ayaa fahantay in ay suurtagal tahay in ruuxdeedu ay meelahan hore u marmartay waayo waxay dareemaysaa in kaliya aanay ahayn qalbiga ay ka arki jirtay ka daawan jirtay gurigan iyo magaaladan iyo rugtan iyo raaskan ay hadeer fadhido balse waxa intaa dheer muxubo aanay soo koobi karin oo aanay garanayn meel ay ka timi magaaladani waa magaalo yar 3,000 qof baa degan dadka degani waa dad cadaan badan waxa weeyaan waa dad intooda badani aad iyo aad u ladan many of them ay ahaayeen dad ma garanaysaa executiveska Microsoft iyo Amazon iyo Expedia kambaniyada waaweyn ee caanka ee saldhigoodu yahay the Pacific Northwest khaasatan Seattle waxa cajiiba xataa in ay guri ka heshay halkan iska badaayo guri gurigii ay raadinaysay ee ay taqaanay ee ay qalbigeeda ka arki jirtay waayo dad lacag leh baa intaa guriga ka iibsada oo kala booba inta badan lagamaba helaba guriyo sida guri iiba lagu helaa Lakeview lagaga helaa aad iyo aad bay u adag tahay marka mucjisooyinkaasoo dhan markay eegtay waxay dareentay inay gurigan hore u lahaydba inay gurigan hore u lahayd magaalada waxay ka tahay gabadha kaliya qofka kaliya muslimka maaha gabadha kaliya qofka kaliya muslimka ee degan waayo waxa weeyaan
dadku inta badan kuma soo dhacaan. iyadu marmar bay fasax iska iman jirtay oo gaadhigeeda intay iska soo kaxaysato, maadaama magaalada ay jeceshahay 2 saacadoodna ay u jirto siyaaro, ay iska iman jirtay oo ay gelin intay iskaga raaxaysato iskaga yaro lugayso. meelo qurqurux badan oo lagu kaamgareeyana way leedahay magaaladu, ayay iska noqon jirtay. weligeed kumay arag xataa qof madow, haddana qalbigeedu aad iyo aad buu magaaladan u jecel yahay. waxay dareentay Maryan in magaaladan ay hore u taqaanay, dhulkan ay hore u martay. dee intii ay noolayd, intii hadda dambe uunede ay magaaladan bilowday inay tagtagto mooyaane, connectionkan ay la leedahay waa mid ah kulli ruuxdeedu inay halkan hore u taqaanay. markaasay qushuucaysaa ilaahay, haddana u mahadnaqaysaa, haddana hoosta iska yar qajirinaysaa, xeernaysaa. waxayba ahayd inaad dee jacayl iyo hawlo kalena ku sawirato. Maryan waa single. 12 sannadood ka hor ayay saygeedii kala tageen. 2 qof oo aada isu jecel oo aada isu wanaagsan bay ahaayeen. calafkuse kala kaxeeyey. isagu dhulkaba ma joogo, UN-tuu shaqeeyaa, Asia degan yahay. inantaa keliya inay isu dhaleen, inan ayaan la yidhaahdo haddeer masterskeedii ka wada dalka Spain. ayaan iyo hooyadeed aada iyo aad bay close u yihiin, aabaheedna aada iyo aad bay close u yihiin. Maryan waa iska dhal, hooyadeed waa Yamaniyad, aabaheedna waa Soomaali. aabaheed waa dadkii ugu horeeyey ee UN-ta shaqadii uu ka bilaabay ayuu kaga retire garoobay. aabaheed iyo hooyadeed waa dad aada iyo aada wanaagsan, aada iyo aada isu ixtiraama, aada iyo aadna isu jecel. hooyadeed unbuu guursaday aabaheed, waa nin aada u afgaaban, aada u dhowrsan, aada iyo aad moodo Soomaalida inteeda badan inuu uga duwan yahay, oo qabiilada iyo waxyaabahan ay isku baacsadaan aan dhexgelin. in badan inantooday la deganaayeen. muddo 12 sano ka hor ah ayuu ka retire garoobay UN-ta. inantooday la deganaayeen oo la joogeen for a long time. markii dambena waxay decide gareeyeen inay riyadoodii ahayd inay Madiina degaan ay rumeeyaan. Madiina ayay u guureen oo ay degan yihiin. inan keliya la dhalatay Maryan waa labadooda keliya. inanka laftiisuna UN-tuu shaqeeyaa. He's based in New York. very close. walaaluhu dad isjecel oo aada iyo aad isu ixtiraama. Maryan markii ay xaaska ahayd, lacagteeda iyadaa urursan jirto, meel dhigan jirtay, investment xalaala ku samaysan jirtay, waxay doonto ku iibsan jirtay ama ka iibsan jirtay. saygeedu isagaa reerka mas-uulka ahaa oo biilashooda taker garayn jiray ama bixin jiray. marka xoogaa lacaga bay meel dhigatay. gurigoodiina markii ay haddeer damacday inay ka guurto Seattle oo early retirement ay qaadato, gurigoodii oo paid off ahaayo maaragtay aan lacag lagu lahayn, markii ay iibisay wixii kasoo baxay saygii ay kala tageen wuu daayay. intii horena mortgageka intii dambe iyadaa la wareegtay oo bixin jirtay, maadaama isagii uu maaragtay reer kala yeeshay, muddana ay kala maqnaayeen. laakiin waa nin aada iyo aada wanaagsanoo waxba guriga ha iibin buu yiri, wixii kasoo baxana adigu qaado, iyadu uga tegay. marka xoogaa kurusabay ku fadhidaa oo u ogolaaday inay dee early retirement qaadan karto oo ay shaqadaba iskaga tegi karto, si ay u raacdo himilo ahayd inay full time writer ama qoraa ay noqoto. cabinkan waa cabin oo kale gurigani. dadka guryaha labaad lihi ma garanaysaa, guri labaad bay ka dhigtaan kan oo kale oo ay fasaxyada yimaadaan. laakiin iyadu she decided, waxay go-aansatay inay full time degto. waa 3 qol iyo 2 musqulood. waa guri yaroo kooban oo geed ka samaysan, wood ka samaysan, sida guryaha dee caanka ku ah cabin styleka. waa perfect for her. waxay isla heshay magaaladii ay jeclayd iyo gurigii ay weligeed qalbigeeda ku sidatay.
the perfect place. marka Maryan meel wanaagsan bay joogtaa markay noqoto financeskeeda. gurigana cash bay iska bixisay, kharash badan oo ka baxaya ma jirto. gurigeedu waa paid off, gaadhigeedu waa paid off, waqti waxay ku jirtaa ay himlada ay doonayso ay si fiican u raadraaci karto, oo ay dhowrka buugee qabyada u ah ay dhammaystiri karto, oo mid ka mid yahay nolosheeda. Maryan waa qof aada iyo aada u urursan, afgaaban, asxaab badan may lahayn. 2 hablood oo midna ay high schoolka isku barteen oo gabadh African American ah, gabadhna ay college roommate ahaayeen oo gabadh cada ah ayay saaxiib la tahay. waa dadka la yidhaahdo third culture kid Maryan, taas oo micnaheedu yahay dadka u dhexeeya dhowrka dhaqanee kala duwan, maadaama ay UN kid ahayd. intii horena ay dibadahaas meermeeri jireen, iyada laftigeedu iyadiyo walaalkeedba Nigeria ku dhasheen. intii dambena ay la jaan qaaday oo la kortay caruuro iyo ummado kala duwan. dhaqan kasta iyo ummad kasta way la jaan qaadi kartaa Maryan. truly waxay dareentaa inay tahay citizen of the world, inkastoo haddana ay tahay qof afgaaban oo ma garanaysaa dhowrsan, haddana ma qalowdo. waa qoftaa u badheedhay dee magaasha cidlada ah, waqti weliba lagu jiro marxalad adag oo dadku ay aada ugu fiirsanayaan, dadka soo galowga ah iyo weliba dadka muslimka ah. haddana waa qoftaa usoo badheedhay in ay timaado meesha aan xataa dad u eegi aanay joogin. intii ay imanaysay aanay ku arag, iska daa qof xijaab xidhane, gabadh xijaab xidhane, aanay qof madow ku arag, balse waxay dareensan tahay meel walba inay tahay ardullah, ilaahay leeyahay subxaanahu watacaala. ma dareento in cidina cid ka leedahay dhulka ilaahay, as long as mar haddii aad ixtiraam ummadda kula noolaanaysid, aanad ku xadgudbaynin, waxa weeyaan iyaguna kuga xadgudbi maayaan sida ay u aragto. waana qof aada iyo aada diinteeda ugu dhow, ilaahay aada iyo aada ugu dhow, qur-aanka aada iyo aada u akhrisata. laakiin qof ummadda ka qaloota ma aha, ama territorial person, dadka had iyo jeer halka ayaan laysoo dhaafin iyo sidaa ah maaha. waxay dareemaysaaba Maryan lafteedu in ay maybe sabab looga soo dhigayba inay meeshan timaado, oo ay dadka halkan degan u noqoto iftiin ay wax kaga bartaan, ama ma garanaysaa wax kaga kororsadaan iyada, not only cilmi ahaan laakiin dhaqan ahaan iyo diin ahaanba, si aanay u dareemin in lasoo weeraray marka ay arkaan qof iyada u eg. marka waxayba isleedahay ilaahay baaba ambassador maybe kuugu talagalay inaad u noqoto diintaada, oo aad dadkan la wadaagto waxyaabo badan oo ay haddeer ka indhala yihiin.